إلهي سمر بدن سلحكما إلا وسحارير مقليه kusoo dhawow caasimadda aan dadkeedu quusan ee dambaska u beddesha dabaqa magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay qarniyo la daalaadhacaysay colaado kala duwan oo mid sokeeyo ugu horreyso taasoo boog weyn ku noqotay fikirka caalamiga ah ee laga qabo iyo korriinka magaalada labadaba mar waxay ahayd xarun ganacsi iyo dhaqan oo camiran marna waxay ahayd xarun tacliineed oo xurunta joogto fikta sare markalena waxay martigelisay dagaallo lagu hoobtay oo baaruudda iyo rasaastu yihiin maciishada loogu iibsiga badan yahay taasoo keentay inay hooyooyin iyo dhallaan badan ay ka qaxaan hoygii ay ku lahaayeen caasimadda si walba ay caqabadi u jirtay haddana muqdisho ma ahayn mid isu dhiibtay duruufaha nololeed ee wakhtigu soo mariyey dadkeeda oo ahaa kuwa uu adkaysigoodu badan yahay ayaa marna u diiday inuu nalku u damo magaalada waa ay dheeliday dadkeeda ayaa singibtiray waa ay kuftay isla dadkeeda ayaa istaajiyey oo boodhka ka jafay mar kale maanta muqdisho waxaa laga dareemayaa isbeddel muuqda dhismayaal cusub ayaa ka soo kacay dambaskii colaadda taasoo daliil u ah adkaysiga magaalada korriin ganacsi oo xawli ayaa ka dhex socda caasimadda heshiisyo malaayiin dollar ah ayaa si maalinlaha loogu dhex galaa muqdisho curinno iyo halabuur tirabeel ah oo ganacsi ayaa ku loolamaya maanta baaruudi iyo rasaastiina waxaa muuqata inay beddeleen midhaha beeraha iyo hilibka kalluunka xeebta muqdisho oo ahaan jirtay meel mar laga cabsado ayaa hadda sahlaysa in dhallinteedu si nabada mar kale ugu tamashleeyaan nolosha xeebta taalla waa mid xiiso gelinaysa qofka ku cusub iyo kan ka raagay labadaba midowga hirarka badda codka da'yarta halkan wakhtiga ku qaadanaysa iyo neecawda baddu waa mid sahlaysa inaad dareento raaxo nafsiya walow dhacdooyinka magaaladu maalinba nooc ahaayeen haddana muqdisho waa mid si adag u xifdiday raadadkeeda taariikheed dhismayaasha qadiimiga ee madxafka qaranka iyo tiyaatarka qaranku weli waa naga yihiin maalmihii adkaa waxay magaaladu u muuqataa mid cashar ka baratay rajada mustaqbal ee caasimadduna waa mid ka caddhayda caanaha geela maalmahaas adag waxay ina bareen inay adduunka ka jirto hal caasimad oo aan weligeed dadkeedu quusan waa muqdisho